bismillahi raxmaan raxiim waxaan joognaa maantay degmada feerfeer hiiraan Soomaaliya oo ah degmo cusub oo runtii sida idiga muuqataba xawli aad u baahan ku socoto dhismadeeda iyo bilicda deegaanka marka la yiraahdo runtii degmadan waxay ku taalaa meel wanaagsan ama halbowlo oo ah guud ahaan Soomaaliya waa degmo xuduud Soomaaliyeed ku taalo iyo Itoobiya u dhaxeeyo xuduudka runtii degmadan dadka deegaanka ayaa waxay u sameeyeen inay deegaameeyaan ama deegaan si xawliin u socota waxaan hadda soo gaarnay amaan maanta aan kormeer barnaamijyo kormeer iyo indheyn iyo sidoo kale inaan dhireen u sameeyno aan ku soo gaarnay anagoo ah ururka wacyigelinta bulshada iyo horumarinta gobolka Hiiraan runtii aad buu maamulku noo soo dhaweeyay degmada dhul oo nagu wareejiyay aan ugu talagalay in dhireynta ku sameeyno ku barbaarino ku diyaarino kadibna aan degmada ku sii abuurno runtii waa inuu mahad celinaynaa maamulka degmada ugu horeeyo gudoomiye mahad degmadani runtii waayihii dambeetaba waa dhismaysay dadka waxaan rabaa in uga faa'iideeyo reer Hiiraan qaasatan reer beledweyne runtii halkaani waa dekada qalalan waaye dadku ma wada ogo waxaan rabnaa in laga wada faa'iideysto oo halkan la dhisto oo runtii ay waxyaabaha nolosha asaasiga ah laga helo sida waxbarashada caafimaadka sidoo kale waxyaabaha inta kale ay bulshadu u baahan tahay haddii noqon lahayd nolosha kala duwan biyaha sidoo kale haddii mar dhawaca loo furay maasha Allah aad bay ugu ladan tahay waxaan rabnaa markii dadku ka faa'iideysteen deegaanka horumarka iyo waayaha dab ku tilaabsanaysay degmadani runtii waa degmo ku soo biirtay degmooyinka gobolka Hiiraan aad baan u soo dhaweynaynaa ka dhalinyaraan runtii mar walba inuu deegaanka iyo dadku ay sii koraan waa jecelnahay waxaan ka shaqeyn doonaa isdhaxgalka iyo nabadda deegaanka insha Allah hadduu Ilaahay aad u mahadsantiin